waxaan rabnaa inaan la wadaagno baarlamaanka iyo guddiga guddoonkaba warbixin guddigii ka soo baxday tabashadeeda oo aan filayo inay haystaan golahoo dhan guddoomiyaha golaha shacabka ujeedo tabasho ka dhan ah warbixin maaliyadeedka meelmarinta qoondada miisaaniyadda 2018 mudane guddoomiye annagoo ah xildhibaanada magacyadooda hoos ku qoran yihiin kana tirsan guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay'adaha dowladda waxaan si xushmad iyo qadarin leh kuugu soo gudbinaynaa qoraalkan nuxurkiisu ujeeddada warqadda kor ku qoran yahay sida ku cad qodobka 6aad ee xeer hoosaadka golaha shacabka qeexayana habka kulamada guddiga oo ah in marka guddoomiyaha guddiga isugu yeero xubnaha guddiga isaga oo sheegaya ajandaha kulanka mudane guddoomiye markii ay xubnaha guddiga heleen ajandaha kulanka kaas oo ahaa warbixinta maaliyadeedka meelmarinta qoondada miisaaniyadda 2018 laga bilaabo January ilaa Agoosto ma jirin kooran buuxiyey fadhiga si loo galo ajandaha isla markaana ma dhicin in loo codeeyo warbixinta si loo geeyo golaha taas oo baalmarsan xeerka guddiga iyo habraaca xeer hoosaadka golaha shacabka intaba haddaba mudane guddoomiye waxaan caddeynaynaa in warbixinta golaha loo qeybiyey ay tahay mid maalbarsan habraacii la rabay inay soo marto ka hor keenida golaha isla markaana ay tahay waxba kama jiraan naga guddoon salaan qiimo badan iyo qadarin ku xambaarsan waxaan rabaa inaan sheego xubnaha ku saxiixan tabashadan ayadoo aan ognahay in guddiga maaliyadda uu ka kooban yahay 18 qofood 10 ka mid ah ayaa ku saxiixan oo kala ah maxamed aadan macalin cali yuusuf cali xoosh maxamed cabdikaafi maxamed hani maxamed aadan maxamuud cabdulaahi siraaji sahre cabdiqaadir cabdiraxmaan cabdilcasiis cabdulaahi maxamed axmed maxamed isxaaq cusmaan aamina sheekh cusmaan haddaba mahadsanid mudane guddoomiye